Badhasaabka gobolka Awdal mudane Cabdo Axmed ayar ayaa maanta la wareegay dhisme xarun cusub ah oo hadda kadib maamulka gobolka Awdal ku shaqeyn doono. Munaasabada xadhiga lagaga jaray xaruntan cusub ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah salaadiinta Somaliland, maamulka gobolka kan degmada iyo ururka haweenka qarankeena. Sarkaal ka socday hay'adda Daawo oo dhismahan hirgelisay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri xafiiska gobolka station baa lagu sameeyay waxaanu حفيز عصب على الرسائل حفيز عصب أو مركز حفيز قدومية كي حاجة تكشره مركز لنا اسمي ورد ما يستربين وحكوا حلي إن فرنشر كلا دقي وحدا وحرصن أو سوقينا إن كمبيوتر ده يقلب سلاسي oo kale ayaa maayirka degmada Boorama mudane Saleebaan Xasan Xadiyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Cabdi Xaashi Xamari oo halkaasi ka hadlay ay carabka ku dhufteen in Badhasaabka cusub uu la kowsaday mashaariic dhinacyo badan ah oo ay dawladda hoose hirgelisay isla markaana ay wada shaqeyn xoogan la yeelan doonaan. Sidoo kale Radwa Maxamed Cige oo ku hadlaysay magaca haweenka oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa tidhi hay uu ka haweenka qaranka aniga oo ku hadlaya afka haweenweynaha reer Awdal waxaan soo dhaweynaynaa oo kuleenahay gudoomiye ku soo dhawo gobolkan Awdal mar kale waxaan halka ka ballan qaadaynaa in aan la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub dhinac kasta ha ahaato oo u horeeyo dhanka amaanka. Badhasaabka cusub mudane Cabdo Axmed ayar ayaa isaguna hadalka soo afmeeray wadajirkaan ilaashano wadajirka qarannimo aan ilaashano halkan waa halkii dhistay qaranka maanta aynu ku dinaanoonayna haysano xorriyadda iyo wanaagga aynu haysano horumarka iyo ma garanaysaa waxa aynu higsanayno waa halkii aasaaska iyo saldhigga u ahayd halayo dawaanay ka muuqataa waanaan mudaaharaadyada had iyo jeer la sheegaa qiimo ma sameeyaan waxbuun bay burburiyaan cidda wax ka burburinaya ama waxyeelada ku keenaya waa innaga ma aha gobollada kale waa gobolkeena iyo magaaladeena waxaa ka qurux badan waxa tabashadu ku jirto in miiska la isula yimaado. Abdalla Ali Yusuf, Home Cable TV, Boorama.